عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi hooyooyinkiin ayay cirbaheeda jannadiinu ka hoos jirtaa. walaalayaal markastaana la soconno hooyooyinkeen, aan ogaano hooyooyinkeen xaaladda ay ku sugan yihiin, yayna ku soo marin salaad adigoo tukaday kabacdi aad hooyada u duceen. walaalayaal hooyooyinka xaq aad u weyn ayay nagu leeyihiin. walaalayaal hooyooyinkeena markasta aan u ducayno, waxaan awoodnana aan u samayno. walaalayaal qof kasta oo nool, qof kasta hooyadiis ay nooshahay, hooyadiis ha ka ducaysto. hooyadiis yayna soo marin saacad ama maalin oo ugu yaraan la hadlin. hadduu uuna la hadlinna oo waqtigu u saamixi waayena, walaalayaal ha u duceeyo. meel kasta ee daafaha ka joogto, hadday rabaan ha wada joogaan, hadday rabaanna ha ka maqnaad. walaalayaal hooyooyinkaan ogaano, kii uu allah subxaanahu wa tacaala uu hooyadiis ka oofsaday oo hooyadiis allah ka qaatana, walaalayaal yayna ku soo marin salaad aad tukatay dabadeed adigu hooyada u duceen. walaalayaal hooyooyinka xaq ay nagu leeyihiin. walaalayaal kuwa waxaan u abaalgudi karna maahane, waa wax walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala u abaalgudi karo. walaalayaal hooyooyinkeena ogaano, walaalayaal hooyooyinkeena markasta aan u ducayno, ilaahu u naxariiso hooyooyinka Soomaaliyeed, ilaahu u naxariiso hooyo kasta oo adduunka ku nool, ilaahu u naxariiso hooyo kasta oo islaama, ilaahu rabbi u naxariiso hooyo kasta meesha adduunka ka joogto. walaalayaal hooyooyinkeena aan ogaano. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.